السلام عليكم كورن هدي أقول واحد جرب برنامج كاسو بقول كذا سيارة شدة كمبيوتر استعمال أنا قرني وذولي ويمكن واحد أبو قوانين وحكم ذا إنه صور كقرار كحاجة صور حقاضي برنامج كوير كام برنامج كنوت بنكا تكسو كودي سكرتي يصير كله إن وكوسة محدودة إن الحال نص كل حاجة ستة لو ما انتظر كالجارة أما لو ما يرى الله كالجارة هذا هو مقال كان وحكوه بري دورة برنامج كم يعيش له مايكروسوفت باور تويز يودولي هي يصير كله قابكو بقول كذا بقول وري كمبيوتر كمبيوتر كور مرسل كمبيوتر هذا كله marka ana kaaga sii hordhicinay waxa ku leeyahay koobkaaga shaaha ama cabitaankaaga ama hadii aad dadka xuna soo qaado waxa cunaysid si aan muuqaalkan u duubo hadoo marka ugu horeysa waxaan isla wadaagi doonaa programkan inta magaciisa waxa la isaga Microsoft Power Toys programkan wuxuu leeyahay waxa la dhaho tools iyo waxyaabo computerkaaga horumarin kara for example kala hadii aan halkan isla wada eegno halkan waxaad arkaysaa color picker waxa la dhaho halkan waxaad arkaysaa file locksmith iyo kan aad aan u isticmaalo ee la dhaho text extractor marka programkan waxa iskala shirkadda Microsoft si aad programkan u soo dejisatid waxaad tagi doontaa Microsoft Store-ka halkaas uma Power Toys ku soo qori doontaa halkan install ma soo dhigi doontaa ama hadii haysan Microsoft Store halkan uma ku soo qori doontaa Microsoft Power Toys oo sano kale Microsoft Power Toys free download Google Chrome kana wad ka soo dejisan doontaa marka soo dejisid halkan ayaa ku soo bixi doontaa dalka soo minimize gareeyo sanu kugu soo bixi doona programkan marka halkan hadaan eegno tools ku leeyahay ciidaasi ka badan soo marka mid baan wada eegi doona iyo waxyaabo tarayo halta marka hore meeshan aan on ka wada dhigay waxa weey waa shortcut-ka ama keyboard shortcut-ka la isticmaalayo for example kale imika waxa soo wada eegi doona mid kamid ah waxaan taaban doonaa Windows Shift iyo T kaas wuxuu noqon doonaa ka text extractor-ka ah oo imika hadaan textigan oo kala soo qaado oo soo wada eegi doona command plate-ka yar ba soo qaaday imika waxaan tagi doonaa programka Word-ka kala soo furaya mid kamid ah ma ku dhufanaya halkaasna waxaan dhaayaan control V wada arkaysaan qaabka text extractor-ku u shaqeeyo kaas waa ka kooban joog maadaama muuqaalkan aan meel fiican marinayno waxa ku leeyahay muuqaalka maanta waxay noo sponsora shirkadda 5T Production 2026 hadii aanu ganacsiga ku lahayn page baraha bulshada waxaad dayacaysaa fursado iyo macaamiil badan hadii aad imika istiraatid bilowna waxa isweydiinaysaa see ku bilaabi kartaa qaabkeed ku bilaabi kartaa iyo halkeed ka bilaabi kartaa jawaabta si fudud waxa ku siisay shirkadda xayeysiimaha casriga ah ee 5T Production adeegyada ay shirkaddu bixiso waxa kamid ah graphic design service oo lagu sameeyo doono designo sida logooyinka posterska iyo dhammaan kuwa social media soo dhigi karto adeega labaad wuxuu noqon doonaa video editing service kuwaasoo lagu sameeyo doono fiidiyoyo tayo sare leh sidoo kale soo jiidasho leh oo aad soo dhigan karto baraha bulshada sida TikTok iyo Facebook fiidiyowga siskiisana uu landscape noqon karo portrait noqon karo adeega saddexaad wuxuu noqon doonaa digital marketing oo macmiilka loo soo sameyn doona xayeysiin casri ah sidoo kale loo soo duubi doono isagoo u baahan wax qalab ah oo kaliya ay shirkaddu u soo duubi doonto haddaba wixii faahfaahinna waxaad kala xiriiri doontaa nambarka shaashada ku qoran waxa ku leeyahay channel-ka ka faa'iideyso ay ku soo bandhigayso shirkadda xayeysiimaha casriga ah ee 5T Production kula wada isleegi doona isagana halkan hadaan soo socdo waxaad arki doontaa kan uu ku qoran yahay color picker-ka imika for example oo kale halku waqti badan kaaga lumi lahayd inaad website kala tagtid oo color-ka u baahan tahay aad website-ka ka soo raadisid waxaad kaliya taabanaysaa halka color picker-ka ama Windows Shift iyo C baad taaban doontaa waxaana soo dooran doontaa color-ka u baahan tahay for example oo kale imika color-ka wuxuu sheegayaa waa maxay waa 383838 marka numberka color-ku ku sheegi doona qaabkaasna wuxuu dadka coderska ayuu caawin doonaa hadii aad eegno mid kastaxaad isaguna wuxuu noqon doonaa halkan light switch-ka waxa weeye day and night buu ku kala bedeli doonaa marka hadii aad keyboard shortcut ahaan la isticmaalaysid iyo hadii kale halkaas uma on ka soo dhigaysa marka keyboard shortcut la isticmaalaysid mid walba kana waxaan dhigi doonaa Windows Control Shift D Windows Control Shift iyo D wuxuu ka dhigay imika cadaan de Windows Control Shift D na aan dhaho wuxuu ka dhigi doonaa madow qaabkaasna light switch baa la dhahaa way mid kale hadii isla eegno isagana
halkan hoos marka waxa soo geli doontaa meesha system toolska ay ku qoratay si aad u kala gargaratid ama home ba tagi doontaa oo halkan aad soo eegi doontaa mid kiimika aan ka helnay oo ah inaad hal mouse la isticmaali kartid laba monitor oo kala gaar ah ama laba muyaarado kala gaar ah waxa weeye kiimika ka helnay kale hadii aad keymouse-ka waxa ku jira sidoo kale kii aan markii dibadda ka helnay oo sheegay in hal mouse aan laba computer oo kale laba monitor oo kala gaar ah ku isticmaali kartid marka waxa weeye kan Carlsrad weeye kaas on ba dhihi doontaa isagana waxa dhihi doontaa Windows Alt U Windows Alt U marka muxuu bedelayaa to saan eegno waxa ma bedelayaa marka kaas oo ku soo dhex khalkhalnay ka kala dad soo aragno ka koobaad isagana advanced based baa la dhahaa marka for example kale imika hadii aad wax soo copy gareysay oo kii koobaad soo copy gareystay kalabaad mar walba uu ka baxaya ama kii labaad uma ku soo aray kii koobaad uu ka baxaya oo hal mar walba wax soo copy gareyn kartaa marka kan advanced based wuxuu ka caawin doonaa inaad wax badan soo paste gareysay kartid hal mar so for example kale imika waxaan sameyn doonaa wax badan soo paste gareysan doonaa kan oo kale ayaan control C di doonaa haddana kelmad baan u dhahayaa control C kelmadan haddana control C de haddana kelmadan control C de imika kii ugu dambeeyay ayuun bay soo baxaya marka paste-gan caadiga joogo so imika kii ugu dambeeyay muu soo bixin advanced paste-gan wuxuu ka caawinaya inuu kuwii hore oo dhan uu ku save garanayo marka waxaad taabanaysaa Windows Shift iyo V halkan uu ku soo bixi doonaa marka waxaad tegaysaa just now qoraaladii oo dhan halkan aad ka wada arki doontaa halkaas aad arkaysaa marka comment-ka plate-ka wixii oo dhan aan soo copy gareysanayay halkaas aad ku arki doontaa marka kaas waxa weeye waa advanced based haddaan qaar kale si eegno on program ku soo noqono file locksmith-kaas isagana waad ku arkaysaa image recessor-kan imika kale hadii aad image size-kiisa aad rabtid inuu yaraado oo aan rabin inuu medium ka noqdo kaliya add new size ma dhahaysaa sawirkiina waad ka soo qaadanaysaa size-ka u baahantii way marka programkan tools badan buu leeyahay oo way yarad ka haysan maanta oo dhan sharxo laakiin horta halkaas waad ka arkaysaa simply wuxuu ku shaqeynayaa qaab keyboard shortcut ahaana soo kalena waa soo dhexgeli kartaa marka programkan qofka waxa lagu talagalay in shortcut-ka uu aad u isticmaalo marka aan waxaan ka isticmaalaa saddex ba horta badanka ugu badan ka ugu horeeya aan ka maarmin oo text extractor-ka oo run ahaantii wax badan iga caawiyay iyo soo kale kan advanced based oo kale ah marka waxyaabo badan soo wada ka koobi gareeyo iyo ugu dambeyntii color picker-kan oo aan badanka muuqaalada iga caawiso hadii aan muuqaalka hadii marka color aan u baahan yahay oo kaliya colorkiisa yar oo fudud ku sahli doono marka waxaan noqonaysaa inaan part 2 ka sameeyno ama muuqaalkan qayb kale ka sameeyno laakiin simple waa arkaysan qaabka uu shaqeeyo programkan iyo qaabka computerka uu dhigi karo computer horumarsan marka waxaan ku leeyahay waxaan soo galnay gabadhii muuqaalka hadii muuqaalka ka faacay maanta aniga ilaaway channel ku soo beertid soo kale muuqaalkan aad like saartid si uu gaaro dad saawa kale oo jecel inay aqoonta bartaan of course kala baxayn dadkaas oo kale waa inaad sii gaarsiisaa hadii kale muuqaalkii meel weyn ba gaarayo marka waxaan ku leeyahay waxaad ku maasatay waqtiga channel ku bixisay iyo daawashada muuqaalka waxaan rajeynayaa inaad ka faacday saas iyo xadiya tagi doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh ilaawina channelka subscribe saataan